dhammaan waa iyaga dhallaan hooyo arday aabe dhalinyaro bukaan kuwa baahida gaarka qaba iyo ruux walba oo ah unu ka mid ah bulshadeenna sanadkii tagay in ka badan 4 milyan oo dollar ayay ku bixisay waxbarashada caafimaadka daryeelka hooyo iyo dhallaankeed kaabidda danyaraha dadkeeda shaqo abuurka dhalinyaraheeda gurmadka iyo gargaarka arrimaha iyo kuwa u baahan iyo horumarinta kaalmaha bulshadeenna waa hay'adda Hormuud Salaam Foundation oo u taagan garabsiinta dadkeeda hay'addu sanadkii tagay waxa ay guula ka gaartay waxbarashada waxtarka waqtiga dheer ka wanaagsan kan hooda ku kooban sanadkii tagay qalinka ayaa la toosiyay nimaan arag bog ayaa loo noqday kii u baahnaa waa xoogga la saaray waxbarashada dadka qaba baahiyaha gaarka ah ee dhigta iskuulka indhoolayaasha dugsiga dhagoolayaasha Sedco iskuulka dhagoolayaasha gobolka Banaadir iyo waxbarashada ardayda danyarta ee gacanta ay ku hayso jamciyadda Sooheeda dufcaddii afaraad ayaa iyaguna kanshada ka helay deeqaha dhamayska tiran ee ay bixiso Hormuud Salaam Foundation kadib ku guuleysigooda tartanka loo galay fursadda waxaana sanadkan qalin bedelanaya dufcaddii koowaad ee ku qalin jabinaysa deeqaha waxbarasho ee Hormuud Salaam Foundation ay siiso ardayda ka soo baxa dugsiyada sare ee dalka taasina waa u farxad ninka rajada sameeyay sidoo kale hay'adda oo kaashanaysa dawladda Ingiriiska waxa ay maalgeliyaan kootada Soomaaliya ee fursadaha ay ka faa'iideystaan ardayda Soomaaliyeed ee sanad kasta ka hela boorsada waxbarasho deeqaha Jiffinin England Scholarship ee jaamacadaha dalka Ingiriiska caafimaadka bulsho walba unugyada ay ka kooban tahay waxa uu yar qoyska teedna hooyada iyo dhallaanka caafimaadkooduna waa inoo wada muhiim iyadoo aragtida laga duulayo waxa ay Hormuud Salaam Foundation iska saartay mas'uuliyad gaar ah isbitaalka hooyada iyo dhallaanka ee Banaadir waa hay'addu ugu deeqday qalab casri ah oo kan lagu koriyo carruurta xilliga dhalashadooda ee bilubuuxsanka ka soo hormara iyo motor si joogto ah isbitaalka u siiya korontada sidoo kale waxa ay hay'addu garab ku siisay isbitaalka inay ka bixiso kharashaadka ku baxa warshada soo saarta oksijiinta oo isbitaalka ay ugu deeqday 87 qof oo kamid ah bulshadeena danyarta ah ayaa si joogto ah hay'addu uga bixisa kharashaadka kaliya sifaynta oo toddobaadkiiba 2 jeer loo sameeyo 308 bukaan oo xaaladahooda caafimaad dalka wax looga qaban waayay ayay ka caawisay hay'addu inay helaan caafimaad dibadda ah waxaana ay hay'adda Hormuud Salaam Foundation ay ka taageertaa xarumaha hooyada iyo dhallaanka ee dalka bixinta mushaaraadka shaqaalaha ka shaqeeya si ay u dardargeliyaan shaqada mudanka ah ee ay u hayaan dadka shaqo abuurka dhalinyaradu waa u dibdhexaadka bulshada waa si curdin u baahan garab waxaanu hirgelinay oo la daafuray mashruuca shaqo abuurka dhalinyarada Soomaaliyeed oo la qorsheeyay inay ka faa'iideystaan 1,000 qof waxaa dufcaddii koowaad ee mashruucaasi kaga aflaxay 80 dhalinyaro ah oo loo tababaray loona iibiyey mootooyinka alaaba geegeenta ka shaqeeya dhammaan dhalinyaradaas oo sanad ka hor ahaa baagamundo maanta waa xirfadyahanno shaqaysta una shaqeeya dadkooda qoysasna ka abuurtay kana biila gargaarka iyo gurmadka labada aan laga maarmin annagana mudanka noo ah 6584 qoys oo danyar ah ayay afursiisay hay'addu Ramadaankii tagay waxaana ay u gurmatay oo kaalin lixaad ka qaadatay qoysaskeena saameynta ay ku yeelatay abaarihii ka dhacay dalka daryeel iyo caawinna waxa ay hay'addu la garab istaagtay dadkii ku waxyeeloobay qaraxyadii Soobe ka dhacay 29 Oktoobar sanadkii tagay waxa ay howlwadeennada dabdamisku ay u gurmadeen oo ay damiyeen dab ka kacay 135 goobood waxaana caawcelin dhaqaale loo sameeyay dadkii ku hanti beelay dabkii qabsaday suuqa isgoyska Banaadir sanadkii tagay qayb ayay ka ahayd hay'adda Hormuud Salaam Foundation horumaradii dadkeenu gaaray qaybna garabka ay ku siisay kuwana ay ku taakulaysay ee danyarteena ahaa xilliyada adag hay'addu waa u hormuud howlaha gargaarka waana u garab gurmadka sanadkan bilowdayna waa noo laba jibaar shaqadii aanu soo qabanay